السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبندقة شاري بشو كسو دوادا حداد كو عصبتاي اي تاي مركي وغوريسا صوبوغتنا بندقة شاري بشو سبسكرايب كسارو سياد مروربا عن نرسو عتيت halkan janalkan kusoo gudbinaya wararka gudaha iyo dibadda iyo xogta ka dahsoonba barnaamijka caawa kusoo qaadanayna bandhiga Shariba Show waa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Mudane Erdogan ayaa kusoo dhaweeyay dalkiisa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq asagoo hab maamuuskii ugu sareeyay ee qof madaxa lagu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada ee magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa bariyahan wuxuu waday isu ururinta dalalka islaamka asagoo baadi goobaya inuu helo urur midaysan iyo dawlado midaysan oo awood military iyo mid dhaqaalaba ku midooba samaystana hubka ugu casriga ah iyo gantaalaha qaarad iskaga gudba sida reer galbeedka oo kale madaxweynaha Turkiga ayaa hore wuxuu ugu soo dhaweeyay dalkiisa madaxweynaha dalkaasi Indonesia anagoo og Indonesia inay tahay dalka ugu tirada badan dalalka dadka islaamka ay ku nool yihiin dalka Indonesia waxa ku nool 420 milyan oo dad muslimiin ah oo sunni ah haddaba soo dhaweynta loo sameeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa noqotay mid argagax gelisay wadamada reer galbeedka oo diidan siyaasadda madaxweyne Erdogan ee ah in uu hogaankii islaamka uu yahay iyo madaxweynihii dawladaha islaamka oo dhan waxa la soconaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan inuu hadda ka hor ku cazumay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga madaxweynaha dalkaasi Pakistan madaxweynaha boqorka Qatar boqorka Kuwait madaxweynayaal dalal badan oo Afrika ah sida Liibiya iyo Soomaaliya Mauritania Algeria iyo dalal fara badan haddaba waa maxay ujeedka madaxweynaha Turkiga ka leeyahay madaxweynaha Turkiga wuxuu rabaa mustaqbalka dhow ilaa 2025 in cudud wadamo islaam ah la helo oo Turkigu uu hogaanka ugu qabto sida Mareykanka reer galbeedka uu hogaanka ugu hayo taasi oo uu rabo in Turkiguna uu samaysto awoodda ugu dambeysay ee hubka nuclearka annagoo og hadda Turkigu inuu leeyahay diyaaradaha dagaalka kuwa ugu sareeya ee caalamka ee loo yaqaano droneska oo aan duuliyaashu wadin kuwaas oo uu ku qabtay dalkaasi Azerbaijan oo uu qabtay dalkaasi Armenia markii khilaafku kala dhaxeeyay iyo gobolkaasi Nagorno-Karabakh haddaba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq markii uu halkaasi booqday ayuu sheegay in madaxweynaha Turkiga uu yahay calaamadda kaliya u taagan awoodda dalalka islaamka adduunka oo dhan wuxuuna sheegay inuu ku soo biirahayo aasaaska uu madaxweynaha Turkiga uu u dhigayo in la yeesho awood military iyo dalal midaysan oo muslimiin ah taasi oo keentay in madaxweynaha Turkiga uu halkaasi ka aqbalo in ay ku soo biirto Ciraaq awooddaasi la aruurinayo annagoo og dawladda Ciraaq inay dib uga soo kabanayso dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinka ka soo maray tan iyo markii madaxweynihii hore Saddam Hussein oo halkaasi uu ka baxay duulaankana dalkaasi Mareykanku ku soo qaaday dalkaasi Ciraaq haddaba madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo munaasabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha sida ujeedaanba madaxweyne Erdogan munaasabadaas uu ka sheegay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Ciraaq ayuu sheegay in loo baahan yahay awood midaysan oo dalalka islaamku yeeshaan si looga gaashaanto kala qaybsanaanta iyo bahdilka lagu hayo wadamada muslimiinta madaxweyne Erdogan ayaa ognahay sidii reer galbeedka oo la dhaqmeen xilligii afgambiga ay ka qabanqaabiyeen dalkiisa oo ay rabeen in la soo qabto ama la dilo ayagoo jabajiis wadankaasi u dhalatay Turkiga oo cilmiyaaniintii hore ahaa oo xukunka laga qaaday oo militariga iyo qaybaha sirdoonka ee dalkaasi Turkiga ku jira ay shirqoolkaasi maleegeen ayagoo madaxweynaha oo nasiino u joogay hotel kamid ah hoteelada waaweyn ee magaalada koonfurta dalkaasi Turkiga ku taala ay diyaaradihii ku duqeeyeen balse nasiib wanaag madaxweynuhu xilligaasi
uu ka soo baxsaday hoteelkaasi uuna soo gaaray Istanbul kadibna shacabkii uu la hadlay shacabkiina ay taangiyaashii iyo ciidamadii militariga ee afgambiga dalkaasi xilligaasi ka waday ay jidadka isbaarooyin u dhigteen oo ay taangiyadii u fuleen kadibna fashiliyeen afgambigii lala damacsanaa oo reer galbeedku soo abaabuleen madaxweyne Erdogan. sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa hadda wuxuu sameeyay warshado waaweyn oo farsameeya hubka noocyadiisa kala duwan sida diyaaradaha casriga ah ee loo yaqaan migaga oo noocyada ugu dambeeyay hadda farsamadooda ay ka socoto warshadahaasi taangiyaasha iyo iyagoo soo saaray oo haddeertaan banaanka soo dhigay diyaaradihii ugu casrisanaa ee droneska oo ay reer galbeedku aysan gaari karin noocooda kuwa haystaan waa Yurub iyo Mareykanka iyo Ruushka oo lagu daraba. waxaan ognahay wacdarihii cid ay ka dhigeen diyaaradaha droneska Turkigu dagaalkii Armenia iyo Azerbaijan oo Azerbaijan ay kula wareegtay 40 sano kadib gobolka Nagorno-Karabakh oo Armenia ka haysatay Armeniana ay taageerayeen Yurub, Mareykanka iyo Ruushka. haddaba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa toos waxa lagu socday soo dhaweyntiisa telefishinada caalamka oo dhan qaasatan telefishinada si toos ah Ciraaq iyo Turkiga. madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo isla munaasabadaasi ka hadlayay ayaa wuxuu sheegay in wax walba ay ku jirto diinta Islaamka iyo kitaabka Ilaahay uu nasiiyay kaasoo sheegaya awoodda muslimiintu inay yeeshaan. wuxuuna sheegay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa iyo asxaabtii inay awoodda muslimiintu ahayd midda adduunka ugu sarreysay oo meel walbana ka talinaysay taasi oo uu sheegay in maantana naloo baahan yahay oo aan la qabsano waa sida hadalka uu yiri Erdogan aan la qabsano xilligan casriga ah oo ay la mid tahay xilligii nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam oo hadba tiknoolajiyada iyo meesha ay marayso in wadamada muslimiintu ay caalamka ay ugu horeeyaan. hadalkaasi ayaa qiiro galiyay dad badan iyo wadamo badan oo islaam ah annagoo og haddeertan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku inay baryayaan madaxweyne Erdogan oo ay rabaan xiriir dhow inay la yeeshaan maadaama reer galbeedka baadoodii iyo dhibkoodii iyo lacagihii xoog looga qaadanayay si dadban iyo si toosaba ay soo karahsadeen. madaxweynaha dalkaasi Turkiga mudane Erdogan waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya in uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka damqada ee u soo gurmada xilligii loo baahnaa ee abaarta ba'an iyo macluushu ay haleeshay Soomaaliya. madaxweynaha ku-meelgaarka Soomaaliyana uu ahaa Shariif Sheekh Axmed xilligaas oo hay'adihii caalamiga kadibna ay isu soo shubeen wadanka Turkiguna oo isbitaallo waaweyn iyo wadooyinka maanta magaalada Muqdisho ay ku faanto oo halkaasi ka hirgeliyay safaaradii ugu weyneed caalamkana oo ka furtay dalka Soomaaliya asagoo tababara ciidamada dalka Soomaaliya. madaxweynaha Turkiga wuxuu kaloo gacan siiyaa dowladda dalkaasi Liibiya ee tabarta daran ee ay reer galbeed ka soo horjeedaan balse qaramada midoobay ay aqoonsan tahay asagoo halkaasina diyaaradaha casriga droonka geeyay oo ka difaacay cid allaaliya ciddii rabta dowladdaasi ama ku wajahan inay afgambiso sida dalalka Masar iyo Qatar iyo Ruushka iyo Mareykanka asagoo magaalada Tripoli ka dhigay meel nabdoon. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس